afar iyo labaatankii saac ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada si weyn loogu hadalhayaa sawirka ay wada galeen weeraryahankii xulka maamul goboleedka Galmudug ee Saqraawi iyo gabadhan isteelka ah ee idiin muuqata ee lagu magacaabo Ifraax iyo tilmaamta ah in gabadhan ay tahay inantii ay xildhibaanadu ballan qaaday inay u guurin doonto Saqraawi. dadka qofka wixii isu dirisay Saqraawi ma gabdho guursadeen hambali aboo ku hambaliyeenayna kaal iska arag horta gabadha Saqraawi la sii hadaad فرحي لهذا دوك نحل هذا وعنيقة وإفراح محمد إفراح ساند مفاند مركا سقراوي عنيقة haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato sheekada lamaanahan iyo muuqaalka gabadha oo si toos ah inoogu sheegi doonta farxadda iyo dareenkeeda ku aadan arooska iyo saaxiibkeeda cusub waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim tahay inaad muuqaalkan laag saarto si muuqaalku saaxiibo badan u gaaro una sheer garay asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga wadna ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga haddii aan ku weydiiyo adiga baraha bulshada Soomaalida 24 saac la soo dhaafay miyaad ku aragtay sawirka ay ku wada jiraan ciyaaryahan Saqraawi iyo gabadhan mana aragtay qoraal tilmaamaya in Saqraawi iyo gabadhan la siiyay ay hadda midoobayaan luuq igu soo diray ee dhaheen Saqraawi ma aragtay hambali abaayo inaa ma aragtay wiilka lagu sadaqeeyo ay lagu daray oo maamada kugu dartay oo ku hambaleenayna waxa rajeynaa in arooska soo qayb gali doono wiilka sorto waxyaalo badan oo jirtay aku taageerayay oo ma aragtay juuda u bixinayay markuu ciyaaray ina ciyaarta oo kasto oo isugu jir aan ka maqnaanaynin waxa kale inuu ma aragtay kulanku soo xaadiray ama meesha joogay taageero weyn inaa ahay haddana waa isku hendarteen idinka isku hendaray hadalka iyo hadalhaynta sawirka ay wada galeen Ifraaxi Saqraawi ayaana yimid kadib markii xildhibaanad Canab ay tilmaamtay in xaggeeda ay diyaar ka tahay gabadhii u ballan qaaday Saqraawi haddii isagu uu doonayo inuu guursado wax kastoo ay socoto sheekada in gabar la siinayo weeraryahankii ugu halista badnaa xulka maamul goboleedka Galmudug ee Saqraawi xilligan waa waqtigii aad ogaan lahayd ama aad baran lahayd aroosada xilliga dhow wixii uu qosolka badnayd gabar markay dhahday wiilkan anaa maxaa dhahay kala amal hadii aad lagu daray jaceelkaygu aasaan ay ka ahaa xibto ma san tahay wiilku naga wada dhaxeeyaan faantay marka warka in ku daalinin horta gabadha Saqraawi la sii hadaad farxi lahayd dook nixil lahayd waa aniga waa Ifraax Maxamed Ifraax Saanid mafahant tan iyo markii xulka kubadda cagta Galmudug ay gaareen finalka tartanka maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir waxaa soo tiriyay ballanqaadyadii loo sameeyay xidigaha maamul goboleedka Galmudug waxaana ugu caansanaa safarkii Turkiga iyo ballanqaadkii gabadha Saqraawi intiina badan waxaan hubaa inaad sugayseen gabadha la siiyay Saqraawi iyo sirta ka dambeysay in wiilkan ee horeba iyadu u sii dooratay oo ay dartiis garoonka u tagi jirtay koos waxa ka helay qaab ciyaareedkiisa markii uu gool dhaliyay waxay ahaydba xamaasad kale to dareenkay la mas'uul karin markii Ifraax ahaan aniga wiilkaas markii uu dheeli jiray markii kooxda uu dheeli jiray inkastoo ay dhan aan taageersanaa oo kaliilaaba oo taageersanaa haddana asiga kuma sii jiray markuu ku jiro garoonka wuxuu ahaa qof si gaar ah aan u taageeray aan u dareemay inuu yahay adiga dhameystiran yahay waa wax iska caadi ah qisada daneynta qof aad si dhab u taageerto iyo rumaynta riyada markii si dhab lagu siiyo oo aad rajeynayso in maalmaha soo socda Allah aqal gasho yeelkeedii Ifraaxi Saqraawi sawirka ay wada galeen waxa aad uga falceliyay kumanaan Soomaali ah oo weedhooda ka dhigay Saqraawi qoftan ayuu ku helay labadii gool ee uu Puntland ka dhaliyay laakiin ugu dambeyn aynu ogaano runta iyo waxa ka dhaxeeya Saqraawi haddii aan wixii hore u qaadano kaftan iyo in Ifraax ay nala kaftamaysay aniga iyo Saqraawi maxaa naga dhaxeeyo waxna ma dhaxeeyaan aniga suuqa iga xirin wiilka suuqa ka xirin maxaa la process iyo dhibaato dheer han gelin ma fahanteen wiilkaas wiil waxa ahaa ciyaartooy ah oo Galmudug u dheelay waa taageerayo oo garoonka soo joogay hal xaflad dhiganayna ka qayb galay maadaama aan ahaa qof reer Galmudug soo jeedo sidaas darteed aan u taageeray oo dhiigu i wada maanta wiilkaas walaalkay wax naga ma dhaxeeyaan
walaalayaal waxaan ka codsanay wiilkan inaan suuqa ka xirnin anigana aan suuqa ugu xiran dadka ay soo jeedin dadka aniga galmudug aan taageeray maadaama asigana oo ahaa ciyaaryahanka ugu fiicnaa oo goolalka badan galmudug u dhaliyay sidaas darteeda u taageeray u dhiirigelinay waxa ugu tagay waxay ahayd dhiirigelin inaan dhiirigeliyo oo keep going man fanta talaay dadkaas reer galmudug soo jeedo oo meeshaas imaanay ma ka dooneen farax ahaan marka wiilkaas aniga asi wax naga ma dheexaan gabar anigana la ima siin asna ma aragtay wax oo hada labadeena dhaxmar ma jiraan siday idiin sheegtay Ifraax waxba kala ma dhaxeeyaan Saqraawi aniga Ifraax waxaan ugu talagalnay inaan soo jiidano indhihiina oo aan kadibna idin tusno wajiga saxda ah maadaama sawirkii Ifraax iyo Saqraawi oo ay si dhiirigelin ula gashay xafladii casho sharafta habeenkii ugu dambeeyay ay dadku boonbooniyeen kana dhigeen in gabadhan ay tahay midii ay xildhibaanadu siisay waxaa xusud mudan in Ifraax aysan kaliya sawirka la gelin ciyaaryahan Saqraawi balse ay sawirada la gashay inta badan xidigaha maamul goboleedka Galmudug oo ay dartood garoonka u tageysay isla markaana ay si dhab ah u taageereysay maadaama ay Galmudug ka soo jeedo balse sheekada ayaa laga abaaray halkii ka jilicsaneed iyo booska kaliya ee laga awoodi kara hadal hayn ahaa in Saqraawi hore loogu ballan qaaday gabar dadkuna waxaan mudaynay sugayeen in kaliya hal gabar uu sawirka la soo galo si hadal hayn looga abuuro baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka haddaba haddii barankigan aan runta idinkugu sheegaynay aniga iyo Ifraax ama aan idinkaga sixaynay qaladka iyo badi dadka aamineen ee ahaa in Saqraawi iyo Ifraax ay yihiin lamaanaha dhawaan isguursan doona si dad kale ay muuqaalkan u sii daawadaan like saar una sheergariya asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga